munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay musharaxnimada Shire Xaaji Faarax oo kamid ah musharaxiinta u taagan jagada madaxtinimada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa lagu qabtay magaalada London waxaana munaasabadan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo jeeda deegaanada Puntland kuwaasi oo si aad u taageeray in xilka madaxtinimada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland uu ku soo baxo Shire Xaaji Faarax doorashada ka dhacaysa deegaanada Puntland bisha January ee soo socota dadkii munaasabada ka soo qayb galay ayaa waxa ay sheegeen in Shire Xaaji Faarax uu yahay shakhsiga ugu habboon xilligan ee ay tahay in loo doorto madaxtinimada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaana ay sheegeen in Shire Xaaji Faarax uu yahay shakhsi in badan ka soo shaqeeyay deegaanada Puntland wax badan oo muhiim ahna u qabtay musharaxiintu waa badan tahay كل بس أنا Shire Xaaji Faarax wuxuu ugu jiraa kaalinta hore caaw waxaynu isugu nimi waa musharax Shire Xaaji Faarax soo dhaweyntiisa aad baan ugu hambaliyaynayaa aniga oo ku hadlaya jaaliyada Soomaaliyeed ee UK joogta annagoo u hambaliyaynaynaa kuna soo dhaweynayna Shire Xaaji Faarax inuu Ilaahay ku guuleeyo jagada uu doonayo oo madaxweynaha jagada madaxweynaha Puntland caawa halka waxaan isugu nimi xaflad aan ku taageerayno Shire Xaaji Faarax Xaaji Yuusuf Maxamed waxaan leenahay dadku Shire qofku qofna waa iska yimi qofna hore u joogay waxaan leenahay Shire nin yimi ma ahe waa nin hore u joogay waa nin muxuu ahaayay mudan xaqiiq ahaan Shire iyo reer Xaaji Faaraxba waxaan oran karnaa waxay ka mid yihiin hal doorka Puntland bay ka mid yihiin xaqiiq waxa la oran karaa Puntland iskama iman waxay ku timi rag xiniyihiis waxay ku timi rag dhaqaalihiis waxay ku timi rag maskaxdiis reer Xaaji Faarax 19 markii burburku dhacay waxay u ahaayeen buddige dadkii naf iyo maal muxuu ahaayay ka qeybqaatay dagaalkii Puntland run ahaantii musharaxiinta Puntland waa ay badan yihiin hase yeeshee bal waxaan si kooban uga sheekaynaynaa musharaxa aan caaway taageeradiisa iskugu nimid waa mudane Dr. Shire Xaaji Faarax waxa uu ku dhashay magaalada Qandala ee gobolka Bari waxaana waxbarashadiisii hoose iyo tii saraba uu ku qaatay Soomaaliya heerkii jaamacadda markii uu gaaray musharaxu waxa uu jaamacadiisii ku soo qaatay wadanka India ka gadaal waxa uu musharaxu ka soo shaqeeyay wadanka Imaaraadka Carabta oo in muddo ka shaqeynayay wasaaradda caafimaadka ee dalka Imaaraadka Carabta inta dabadeed musharaxu wuxuu u xubsiibtay ganacsade waxaana ka aasaasay deegaanada Puntland oo aad looga yaqaano in ka badan 20 shirkadood oo haatan ka howlgala waxa sidoo kale musharaxu wax ka qabtay dhinaca waxbarashada oo aasaasay hay'ado muhiim ah oo ka shaqeeya waxbarashada Dr. Shire Xaaji Faarax oo aan isleenahay waa ahmiyada kaliya aan jeclaystay inaan ka hadlo oo aan tiso shucuurtayda ku salaysan inaan maanta aan ka hadlo Shire oo ah musharaxa kaliya aan isleeyahay wuxuu ka saari karaa mugdiga Puntland ay ku jirto ama marxaladda maanta taagan oo u baahan tahay Puntland waxaan aaminsanahay Shire uma baahna isagu laakiin naga u baahna dal Puntland ahay marka labaad waxaan dhihi lahaa horta Shire anu waan aaminsanahay waayo waa nin cisaamiya carabtu waxay dhahan waa cisaami waxa weyn qofku isagu shaqaysta oo is soo saara reerkooda dhanba shaqa lagu yaqaan waligood waa dad dadaalo oo shaqaysta shandad maran lama tagayo Puntland oo u baahan in la soo buuxiyo waxa uu u tagayaa insha Allah inuu khayr dadkii u sheego oo meesha ay joogto Puntland ka sii wado ilaahay qof buu afkiisa wuxuu ka yarsiyaa isbedel doon laakiin isbedelka dhabta ah oo muuqda oo ilaahay dadka wuxuu siiyay laba indhood labada indhood ilaahay ku siiyay labadan maaha laba kala mid kala ayaa jirta oo ah qalbiga haddaad fiiriso isbedel doonka dhabta ah oo ii muuqda waxa weeye Shire Xaaji Faarax hagbad bay ahayd hagbada soo garan mayno hagbad meel ku wareegtay bay ahayd Puntland marka waxaan u arkaa isbedelka la sheegayo waa hagbadii oo laga baxayo
oo insha Allah marakan bari la gelayo baanu arkaa marka waxaan leeyahay waxaan u baahanahay ummadda reer Puntland waxay u baahan tahay isbedelka aan sheegay munaasabadan ayaa dadkii ka soo qayb galay dhammaan waxa ay sheegeen in Shirax Xaaji Faarax uu yahay shakhsiga ugu habboon ee xilligan samata bixi kara Puntland. Maxamed Cabdi Salaad, Royal TV, London.